kabatole bertome tumaal fuundi farsamayaqaan beeraley caanoley dhammaan waa xirfado salka ku haayo qiimo weyn oo weligoodna soo jireen ahaa balse marka Soomaaliya u soo noqona waxa dareemaysaa in ay cayb ka tahay ama ay ka tahay qofka marka uu ka shaqeeyo shaqooyinkaas qayb ka mid ah waana falaqeeda barnaamijka maanta ku falanqeyn doono magacaygu waa Maxamed Ibrahim ayaana nabadgelyo korkiina ahaato ku soo dhawaada barnaamijka kaftan iyo kululaysi waatay toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa shaqooyinka Soomaalida ceeb agtooda ka ah balse caalamka marka u fiiriso wadamada horumaray oo dhan ay asaas u tahay ama salka ay ku hayso dhaqaalahooda gaar ahaan beeraha si loo fasho sida caanaha loo listo biraha si loo tumo kabaha sida loo sameeyo waxa dareemaysaa wadamo badan oo adduunka horumaray inta badan waxooda ayaga soo saarto waxayna uga maarmaan in banaanka wax looga keeno waana isku filnaanshaha waxa tilmaamo qofka markuu isku filan yahay Mareykankii Shiinaha oo haatan inta badan adduunka isku hirdamay ama isku haystaba dhaqaalahooda waxa dareemaysaa waxa ugu badan isku haystaan waxa waa wixii Soomaalida ay ka wada fahnaysay Soomaaliya waxay lahayd dawladda inta burburin ka hor warshado badan oo inta soo saaro dawladii Soomaaliya xilligaas jirtana waxay xoog gelin jirtay in shacabka isku filnaado gudaha wax ku jira ama waxyaabaha gudaha yaala in la isticmaalo taa badalkeed dawladda haatan jirto inta badan ku mashquulsan kursigaas madaxweynenimada loo wada ordaamaa wax ku jireen laakiin waxa iiga muhiimsan oo qodobka maanta xoog ku faaqidi doona in maskaxiyan cayr ka noqon maskaxiyan inaan ka noqono masaakiin yaani qofku markuu farsamo uu sameeysto ama farsamo uu farsameeyaqaan gacmeed yahay in magac looga dhigo oo la yiraahdo Cabdi Tumaal Ali Fuundi hebel waxaas aniga waa fahmi la xoolanimada iyo jaahilnimada intaas leego dhamaatada meel ilaa hadda naga haysata ma aqaan meel aan raacno laakiin TV ama kanaalka la yiraahdo History wuxuu soo diyaariyay ama uu leeyahay barnaamij la yiraahdo ama lagu falanqeeyo ama lagu gogoliga ama lagu tartamaba qaabka qofka uu wax u sameyn lahaa midiyaha oo haatan wuxuu ku saarayo qofka ugu dambeyn guuleystan waxa la siiyaa $10,000 taa badalkeeda Soomaaliya oo qofka lagu yiraahdo tumaal ama birtume ama fuundi ama rinjiile badalkeeda cayb ma qaamel u raacin horta muuqaalkan wax yar la daawado Bladesmiths, welcome to the forge. There have been many groups of warriors that have used bladed weapons en masse throughout history, and today we're going to honor one of those groups, the samurai, by having you forge one of these. A Tonto knife. Tonight. There's a large hole and gap in the steel. Ow. God. Not looking good. I have delaminations. I'm not sure if the delaminations are core steel, which is a huge concern. Delaminating in the center of the canister would be a catastrophic failure. Justin and Chewy, they're both having issues, and they're both in a lot of trouble right now. qoliyooyinkan inta badan waxa sameeyo farsamada gacmaha sameeyo oo muddo badan wadanka ka soo dhaxlay awoyaashooda ama aabayaashooda ama dadka ka sii horeeyay aan jaamacad u tagin haddana wuxuu isku dayay in baahida gudaha taal inay cover gareeyaan sida maxaa baafiyada biraha canjeelada oo kale lagu dubto midiyaha oo kale qaadooyinka inta badan waxyaabaha gacanta laga sameeyo xoog badan waqti badan ingilaa inkastoo wax badan iso soo saarin haddana inta yartii soo saaraan wuxuu isku dayay in dadka ay ka iibiyaan taa badalkeeda waxay Soomaalida xoog u jeceliyaa Soomaalida waxay xoog u jeceshahay waxyaabaha dibadda looga keeno waxay ku leeyahay oo kan waa Talyaani waani fadhi Talyaani araba oo arkayskii gudaha ku jira ama kii magaalada kula joogo oo wax ka qurux badan sameeyna ka kwaalata fiican meesha ka dhiirigelin leh qoliyooyinkan wax sameeyay aan u soo noqono waa dad inta aad muddo dheer aad loo faquuqayo ha ahaada kii fuundiga dhisay ha ahaada kii birta garaacay ha ahaada kii farsamayaqaanka qoliyooyin waxa muuqaalkan barto waxay ila daawado qoliyooyinkan gacmaha wax ka sameeyo oo muddo badan la cilaadiyay la dhacay xaaladaas waxaan sameynaa toorooyinka taasiska yaambooyinka sida iskarbeelooyinka oo biraha lagu jaro
هذا وحياة بدل ما سمعنا ويبسنا هذا ولا قصة بس ويبسنا ما كان سمعنا لكن سمع سكودي وقت بدنا ده حسنا السير شلنا sida la wariyay qarniyadii hore ee Soomaalidu ay u badnayd baadiyaha dadka waxa lagu magac dhabi jiray ama magaca loo yaqaan lagu lari jiray magac kale oo tilmaamaya shaqada uu ka shaqeeyo sida ugaarsade badmaax tumaal iyo qaar kale barnaamijkan kooban waxaanu kaga hadlaynaa dadka ka shaqeeya biraha oo sida magacooda shaqo ka muuqata lagu magacaabo tumaalo taasoo muujinaysa in magacan ay ku mutaysteen xirfadan ay ka shaqeystaan jaahilnimadii hore ee dalkan ka jirtay ayaa sida la wada ogsoon yahay waxay sababtay in dadka halabuur kale ee dalkan wax ku soo kordhiyay iska daa in la dhiirigeliye in lagu yeeso shaqo iyo farsamooyin ay soo kordhiyeen haddaad tagtay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamarweyne wadada via roma la yiraahdo waxa ku yaalo xaruum waxa ku yaala meelo lagu sameeyo kabaha dadyooyga sameeyo waa dadyo ka soo dhaxlay awooyaashooda laakiin kabaha ay sameeyaan hada arki lahayd wallahi waxa is dhihi lahayd quality iyo qiimaha iyo quruxda si u eegin adida xataa weligaad maad u baahnaateen maxaa yeelay hadii la dhiirigelin lahaa hadii lagu faani lahaa hadii wax lagu sameyn lahaa نعم الشيطان كي وروح قرنك مالا أورعد ما نقال الدولة وحي بكبح هذا كرسي قال سكول هيستو عيل حمين قنيسة إن أنجي لحظة أنا وحي أصوص عرن كرنا اسكوب بده شق قرن وحن لاقون أنا ما قام مالا أورعه لكن نينا صاحبنا ما لدو حيجي كان مقدش تجي وحير سومالي وحنكو أركويري إلا هاتن وحيو يابك بدناها وحنكو أركويري سومالي ذي قدرتي سومالي عنك يكون سومالي فروتس كلا يقانه إن قدرت بنانك لو كينه أنا ما أقان ماشي وحكى لي سين وحالي هلك تفاحة أو شني $2 $5 لقضاي وهل تفاحة بنانك لو كينه عم به سومالي عنك بنانك لو كينه لما قام ماشي لو كينه ولنا ما قاباش مال أورا عيل بدنا ماشي مال باشي محل فقر وحن كانوا قن مسكحين فقر وحن كانوا قن مال ورب ورنا قد تجد بحي وقرون كمال غير عن من قان هذا الكيان بدن لكن واحد دريمنسا باش مال اسكر قبسن هذا ماله اسكر قبسن هذا حبه اساس كي ابره سلكه وس ابر كودا نقونه ورمنا قان مال وراعدونه 30 سنه كدي واحد دريمنسا ماشي ولي تاغنا عيل كدي وبينا مدحونيسياد بر انتو سو ودن كتغين waxyaabi u dambeeyay waxa soo kamid ah qodbada u jeeday waruuxii hal isku tashto Soomaaliya isku tashto hal isku wada tashto qodbada madaxweynaha waxa yiri la daawada kadibna barnaamij soo xireena kii bad gala ha galo kii biri gala beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kale to oo qiimo la qabanaya ha qabto qof gaajaysan gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la raba laga sameystaa oo maxaanu nu kalifay inaanu saas u gubowno duca kala haay ma jirto ilaahay roob noo keen barnaamijku waa intaas caafimaad idin rajeena inta ka hesheen hadaa ka hesheen barnaamijkana saaxiibadin la sii gaara nabadii warsan ma alaykum salaam